السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي waan idin salaamay walaalahayga sharafta leh ee ku xiran channelkayga. Kusoo dhawaada mar kale channelkayga horumarka haweenka. barnaamijkan inta badan waxaan kaga hadlaa channelkan waxaan kaga hadalnaa inta badan horumarka dumarka ay sameeyaan iyo waxyaabaha dhibka ah ee dumarka ku dhaca. marka kusoo dhawaada ayaa idin leeyahay mar kale. maanta wallahi billahi aad iyo aad ayaan maxaa la dhahaayay u naxsanahay. barnaamij aad iyo aad u culus ayaa ka dhacay Kenya Nairobi sida wada ogtihiin dadka qaarna inta badan ayna ogeen. marka insha Allah maanta diradda waxa inoo saaran barnaamijkaas oon uga hadli doono si maxaa la dhahaayay dhowr qaybood oo u kala qaadi doono barnaamijkaas inaan ka hadalnaan isku dayana insha Allah taala. marka intaan barnaamijkeena guda gelin ama aan furfuranin waa ogtiin hadii shaqada laga rabo subscribe-ka dhac ku soo siiya ma fahanteen. subscribe-ka dhab ku sii maxaa la dhahaayay to waa kaas waxa la isku sheegayo akhyaarta cusub waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan. dadka hore ila jooga waxaan leedahay waa maasantiin kun iyo kow jeer jazakumullahu alf khair. thumbs up share waxaasna lima sheegayo. marka walaalayaal maanta wallahi billahi aad iyo aad ayaan u naxsanahay. barnaamijkan kusoo kordhay Kenya waa la socotaan tiro hadda gabdho badan ayaa la laayahay ilaa 3 gabdhood. gabdho aad iyo aad u yaryar waaye weegan gudihiisa ayay arrinta bilaabatay sida la socotaanba. barnaamijkan ayaa hadda nagu cusub Kenya reer Kenya hadaan nahay. barnaamijkan ayaa aad iyo aad noogu cusub wallahi waan la naxsan yahay. arrinta aad iyo aad ayaa looga cabsanayaa weli wax ka hadlay ma leh. weegan ayay arrinta bilaabatay. barnaamijyada sida arkaysaan sawiraanta ka arkaysaan gabadhaas Xafsa waa xawaay Xafsa Maxamed waa 22 jir saa u jeedaan waa la laayahay. gabadha kale waxaa la dhahaa Umul Khair iyadana sidoo kale waa la laayahay. gabadha kale waxaa la dhahaa iyadana Xafsa ganacsi ayay lahayd ganacsigeedii soo xiratay. markii albaabka ganacsiga u soo xirtay kaamarooyinka ayaa qabteen iyadoo la daba socdo oo gabar kale oo iyadana mask u xiran yahay daba socdo oon looga shakisan yahay weli inay afduubeen. isla markaana gabadha waxaa videogeeda ilaa shalay haddana meediyaha lagu soo daadiyey iyadoo maxaa la dhahaa aad inta loo garaacay aadan fiirin karin aad iyo aad loo tumay wallahi naxtin kaliya waaye barnaamijkan. marka barnaamij ku cusub waa Kenya qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed ma fahanti. awal waxaa la afduuban jiray ragga saa ogtihiin hadda dumarkay ka shidan tahay ayaantaan wax la dilo iyo wax la afduubo iyo shakadaas soo cusbanaatay. marka anaga hadda dumar nahay ama gabdho nahay maxaa nala gudboon arrintaasna inaan maxaa la dhahaayay to aan ka hadalno weeye muhiimna waaye in gabdhaha yararka la xasuusiyo waxyaabaha programyada maxaa la dhahaayay to waxyaabaha u keen karo problemka u keen kara in maxaa la dhahaa waxyaabaha maxaa la dhahaayay to inay ka taxadiraan ay tahay in loo sheego ma fahanteen. marka wallahi waxa ku hadlay maanta ma garanayo aad iyo aad aad ay qeyradeeda u kacsan tahay. gabadha masaakiin ah oo maxaa la dhahaa la iska afduubanayo qaar la dilay hadda 3 gabdhood la laayahay ilaa bishii 16keedii. weegan gudihiisa ay sheekadan bilaabatay gabar ganacsigeeda iska xiratay markii xiratay iyadoo reerkeeda ama xaafadda u socoto ayaa la afduubay waa la waayay. hadda shalay meediyaha lagu soo daayay iyadoo inta si xun loo garaacay wajiga si xun looga garaacay ayaabaysid wajigeeda dhibic gaduudan uu noqday. maxaa la dhahaa meediyaha la soo galiyay oo la leeyahay lacag aan laga rabaa madax furasho ah lacag ilaa 50 milyan ah. marka insha Allah taala ilaahay horta wixii shar ah hanaga haayo. adkaar ayaa jirta la akhristo subaxii markaa baxaysid gurigaaga markaas uga baxaysid adkaartaas ku bax markaa baxaysid adoo weyse qabo adkaartaada akhrisatay isxir sixiray lugta mida guriga uga bax. maxaa la dhahaa meelaha qaar aadaysiin gabdha ka fiirsada hadduu ilaahay yiraahdo. marka insha Allah taala ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu inta maxaa la dhahaayay to gabdhaha inta naga maqana noo soo sahlo fidnadana inta ilaahay nooga simo. arrin aad looga naxay waaye weli dowladda Kenya wax soo hadal qaaday iyo wax ka hadlay ma lahan laakiin familiyadii ay ka maqneed gabdhaha inta badan reportka waa la geeyay booliiska report ayaa laga sameeyay gabdhihiina weli waa la raadinayaa. marka insha Allah taala arrin cusub waaye oo hadda ayaantan ku cusbanaatay
marka gabdhaha meesha cagta saarayan inay ogaadaan in maxaa la dhahayeeto mootooyinka la raacayo iyo waxaan maxaa la dhahaa magaalada la iska dhex gooshayo la iska joojiyo khaasatan dadka mootooyinka iska raacaya iyagoona ogeyn meel loo wado inay taxadiraan mootada aad iyo aad hadda nagu soo badatay gabdhaha soomaalida ee aad u raacaan saa ogtihiin marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay dee meesha cagta la dhigaya ha laga fiirsado meesha la aadi doono ha laga fiirsado qof kastoo gurigiisa ka baxaya ha isxiro qur-aankiisa ha akhristo qur-aankiisa ha akhristo adkaartiisa ha ku baxo hadduu ilaah yiraahdo insha allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in sheekadan ay naga soo afjaranto oo intaa ilaahay noogu simo gabdhaha naga maqanna ilaahay uu noo soo sahlo insha allahu tacaala intii la dilayna ilaahay maxaa la dhahayeeto nabarkooda uu u boogadhayo insha allahu tacaala marka insha allah barnaamijkaasa maanta nagu cusub wallahi billah inaan ka hadlana waan rabay si fiican uga hadla soo aruuriyo wixii barnaamijkaas kusoo kordhan insha allah waan ila socodsiin doonaa laakiin hadda inta muhiimadda lahaayo xogta lahaayo oo la hubo waa intaa in gabdhaha ay maqan yihiin 3 gabdhood ay yihiin mid kayaala xaafad dhaho laga afduubay midna kamakunji meesha ugu dambeysay yani maxaa la dhahayeeto ay joogtay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu intaa nooga soo afjaro idinkan waxaan idin leeyahay dee taxadara meesha cagta dhigaysaan la socda adkaartiina akhrista waa inkaasa intaa barnaamijka waxay kusoo kordhana insha allah waan ila socodsiin doonaa hadduu ilaahay subxaana watacaala yiraahdo inta barnaamij lamid ah ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa nabaday barnaamijka sii share gareeya like ta hala siiyo subscribe waa idin salaamaya dhammaantiin